kulanti wacan oo wanaagsan khayr sanad daawanaysa sida aad u dhantihiin iyo meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka BBC da oo aan maanta ku soo qaadanayno gabadha Soomaaliyeed ee ahayd gabadhii muslimka ee ugu horeysay ee ka qayb qaadata barnaamijka tartanka hablaha quruxdooda ee gobolka Minnesota ama Minnesota Pageant. gabadhaasi Xaliimo Aadan ayaa leedahay. Xaliimo ku soo dhawaada barnaamijka. Thank you. Xaliimo waxaan ku weydiinayaa inagoo sheeko badan ka sheekaysan doona bal markii kuugu horeysay ee baashanka inaad ka qayb qaadato quruxda hablaha aad damacdo maxaa kugu dhaliyay حارب أنت قبلها كلا أركان أنت حجابك وح أو كاليفاين معه هذا نادت كان كستب صار عن قف مسلم محاوي وحنا كشجان محارب أنت الدنيا درنا أركته أنت أنا كضد أو حين أنت أهان marka waxa weeyaan markaad arintaa ka fikirtay sideed ula xiriiday sidee bay ku suurta gashay inaad kamid noqoto dadka u tartamaya quruxda maxaa arkaa gabdho badan oo xijaabka iska siibay marka ay galaan waxyaasha kale laakiin inta gabdhaha yar arkaan fiican inta xijaaban kartid adiga oo wali wax aragti suubinaysan markay maada la xiriiray mise yaa kula soo xiriiray markaad ka qayb galaysay my application baadire laakiin maxaa ku dhahay inta xijaabkayga gashanayo ida restaurant oo hadii lagu ogolaado xijaabka inaad ka qayb galayso maxay kugu yiraahdeen markaa maxay dhahan like waa soo fakarayna laakiin email ay soo direen oo dhahay so okay waay maxaa dareentay markaa waa farxay hay ma u maleynaysay inay noloshaada sidan u bedeli doonto oo waxa weyn sidan lagu soo bandhigayo my maxaa u maleynayaa bas inta like scholarship u gala lacag iskuulka inta ka helo ma u maleynayaa inta san u weynaanayso hadda markaad ka qayb qaadatay noloshaada saameynta leeyahay ku yeelatay ha dad badan baa ila soo xiriiray gabdho badan adduunyada meel kasta baa soo xiriiray oo dhahaan intay ku faraxsan yihiin waxa suubiye iyo maxay ii sheegaan inta like gabdho badan ay ii sheegay inta xijaabka laga siibay mise inta la caayay mise inta la xumeeyay just because xijaabka xiran yihiin anina maxaa ugu jawaabay adi xijaabkan diinta u suubinaysaa soo qofka waxaan ku suubinaa ka u taashaa marka waa la qabtay tartankii quruxda maxaa la shirtagtay maxaa la tagtay meeshii maxaa la tagay xijaabkayga iyo cabaayad iyo dress dar like oo asuruna kusoo galeen gabdhihii kalena gabdhihii kale maxay kusoo galeen dharkoodii dharka cadaankay kusoo galeen marka meel waxa weeyaan xijaabka iyo cabaayada loogu talagalay inaan ahayn wada aragtay Soomaaliya oo gabdhihii ay u diyaar garoobeen inay jirkooda tusaan oo quruxdooda la qiimeeyo maxaa istiri markaa ani waxaas like meel saxsano because quruxda maxaa waaye wajiga bas ma aha quruxda maxaa waaye niyadaada iyo dadka kale saa ula dhaqamantid iyo waxyaashaas oo kale waaye qurux just waji ma aha iyo jir soo maxaa raba gabdhaha kale even cadaan hadday yihiin intay arkaan intaas qaabisid ma aha hadda aragtid qurux intaa noqotid barnaamijkii quruxda waad aragtay waad ka qayb qaadatay cabaayadaadii iyo waxa weeye dharkii khamaarkaagina waad kaga qayb gashay inaad mar dambe ka qayb galayso ma ku muuqataa mise waxa weeye waa tijaabiye waana ka wadlada ma hooya ii duceysay maxaa waxaan ka dhaxba hal mar waa soo bas intaas ku ahaato marka hooyada lafteeda dad soo qaaday hooyada kamay qayb galin Soomaha meeshii ciyaarta lagu soo bandhigay meena tagin no way aad labada maalmood laakiin inta like hawriyaasheeda iyo abtiyaasha iyo walaalahayga dhan ala hadalay oo bariya oo yiri iska daa hada adar asturan ku baxayso dimaha markii hore ma kala hadashay application-ka ama codsiga aad dirsanaysay moogeeyadu my surprise ba ugu dhigay baa u sheeg maxaan dhahay hada ii diidin ma suubinay laakiin hada ii ogolaadid waa suubinaa